Filimkeenu waxa uu ku bilaabanayaa qoys taajiriin oo ku nool caasimadda Mexico. Aabood waa ganacsade caan ah oo magaalada la yaqaano, waxaana lagu magacaabaa Guillermo. Waxa uuna dhalay 3 carruur oo kala ah Shafi, Barbie iyo Charlie. Dhammaantood waxa ay ku nool yihiin lacagta ay ka geeriyootay hooyadood oo u geeriyootay xanuun caafimaad sannado ka hor. Midkoodna hal maalin ma shaqeeyo, aabahoodna ma siiyo wax daryeel ah, waayo mar walba waxa uu ku mashquulsan yahay shaqada. Wuxuuna aaminsan yahay in carruurtiisu weli ka murugsan yihiin geeridii hooyadood ku imaatay. Barbie waxay xiriir la leedahay Peter oo ah ganacsade guuldareystay. Peter ujeedkiisu waa inuu guursado Barbie si uu u helo lacag ku filan oo iskaga bixiyo deynta lagu leeyahay. Balse Barbie xaflad gaar ayaa la soo agaasimay, shaqaale badan oo dheeraadna waxay yimaadeen guriga si ay wax ugu diyaariyaan xafladda. Barbie waxay aqoonsatay mid ka mid ah shaqaalihii oo lagu magacaabo Loja oo abti u ah gabadh u adeegta qoyskooda oo ku nool gurigooda. Carruurnimadeedii Barbie waxay dhibi jirtay Loja iyadoo iskaga dhigaysa inay dhibaato haysato, balse Loja shaqaalaha kale waxa uu sheegi jiray inuu iyada neceb yahay. Shafi waa wiilka keliya ee doonaya mustaqbalka inuu la wareego ganacsiga, balse mar walba waxa uu la caawiyaa saaxiibadiis. Waxa uuna u sheegaa inuu u shaqeeyo shirkadda, sidaas ay tahay wax fikrad wanaagsan kuma soo kordhiyo shirkadda aan ka ahayn fikradaha nacasnimada ah. Maantana Shafi waxa uu soo jeedinayaa in ay bilaabaan adeega keenista batroolka guryaha, balse German iyo Karim oo aabihiis ganacsi wadaag yihiin ayaa ku qoslay fikraddiisa. Wiilka ugu yar ee Charlie waa foodista kuleejka, maalin walbana waxa uu garaacaa oo dhibaa macallimiintiisa, wuxuuna waqtigiisa ku qaataa inuu dhigto xaflado kuna caweeyo maqaayadaha waaweynta, waayo waxa uu ku ciyaaraa lacagta waalidkiis. Maalintii xigtay, xogeynta ayaa German la wadaagtay biilka qarashaadka carruurtiisa bishii la soo dhaafay. Karim oo xafiiska jooga ayaa asna arkay warqadda qarashaadka ay isticmaaleen bishii la soo dhaafay, wuxuuna uga digay German caadooyinka xun ee qarash bixinta carruurtiisa. Intii xigtay, Shafi iyo saaxiibadiis waxay safar diyaarad qaas ah u qaateen magaalada Miami, isaga oo dayacay shaqadii aabihiis u dhiibay. Xafladda dhalashadii Barbie waxaa iskugu yimid asxaab badan, qof walbana waa uu faraxsan yahay. Barbie waxay aragtay Loja oo shaqadiisa qabsanaya, kadibna waa ay u soo dhowaatay si ay uga codsato inuu ka nadiifiyo wasakhda gaartay labiskeeda. Loja oo uu neceb yahay Barbie, laakiin waa inuu adeeco amarkeeda si uusan u waayin shaqadiisa. Waxa uu German ka codsaday inuu u guuriyo gabadhiisa Barbie. German waa uu la yaabay sida Peter u ilaalin doono gabadhiisa iyada oo faraxsan, waayo waa shaqo la'aan. Barbie markiiba waxa ay go'aansatay inay isticmaali doonaan lacagta sanduuqa kalsoonida oo ay hooyadeed ka geeriyootay. German isaga oo ka shakisan in Peter uu yahay qof wanaagsan, waa uu diiday guurkii. Barbie kama labayn go'aankeedii, si fudud ayay dibadda ugu soo baxday, waxayna ku dhawaaqday in iyada iyo Peter ay isguursanayaan. Intii xigtay, Karim ayaa German waxa uu sheegay in wiilkiisa Shafi uu dayacay mas'uuliyaddii iyo shaqadii muhiimka u ahayd ee looga dhiibay shirkadda. Xoogaa kadib waxaa soo wacay madaxa kulliyadda kollejka Charlie, waxaana lagu wargeliyay in wiilkiisa lagu helay qalad, kaasoo ah inuu macallimadiisa xiriir la sameeyey, saas awgeedna kollejka laga buriyey. Markii uu maqlay hadalkaas, German waxa uu ku adkaaday inuu neefta qaato, waxaana loola cararay isbitaalka. Markii ay carruurtiisii soo booqdeen, waxa uu sheegay inuu ku dhacay wadne xanuun. Karim waxay dejiyeen qorshe wanaagsan oo ah inay lacagta bangiga xiraan oo ay sameeyaan bankruptcy, carruurtiina dejiyaan xaafadaha isku raranka ah. Xilligaas Barbie waxa ay joogtay maqaayadda iyada iyo saaxiibkeed, halka Charlie uu ku jiro fasalkiisa, laakiin labadooduba waxaa loo soo diray taleefan, waxaana lagu dhahay si degdeg ah ugu soo laabta guriga. Markii ay soo gaareen guriga, waxaa sidoo kale go'ay khadadka taleefanada, waxaana bannaanka iskugu soo baxay dad badan iyo booliiska oo hareereeyay guriga German. Markiiba waxaa yimid German oo xanuunsan, wuxuuna u sheegay in ay derbiga gadaale ka boodaan si ay u baxsadaan. Markii ay guriga xoogaa ka fogaadeen, ayaa German waxa uu bilaabay inuu u sharxo waxa ku dhacay shirkaddiisa, wuxuuna carruurta u sheegay in saaxiibkiis Karim khiyaanay, uuna la baxay dhammaan lacagihii shirkadda taale, haddana uu yahay qof baxsad ah. Sidoo kale, boolisku waxay raadinayaan iyaga dhammaantood. Tani waxay ka dhigaysaa in ay ka fogaadaan inay la xiriiraan dhammaan qaraabadooda oo ay ku noolaadaan nolol hoose oo ka fog raaxada. Halkaa waxaa ugu bilaabmay nolosha adag. German wuu go'aansaday in carruurtiisa dejiyo guriga qadiimiga ee aabihiis, kaas aan ku jirin liiska hantida shirkadda. Guriga ayaa aad qadiim u ah, waayo 10 sano ka hor ayaa laga guuray, maadaama 3dan qof aysan weligood degin wax aan ka ahayn hoteelo qaali ah. Isla markiiba way argagaxeen. German waxa uu u sheegay carruurta in ay dayactiri doonaan waqti kooban. Barbie waxay isku dayday inay qubaysato, laakiin tubadu waxay sii daysaa biyo wasakh ah. Sidaas darteed waxay bilowday inay isticmaasho gacmaheeda si ay u nadiifiso dhammaan jirkeeda oo dhan. Dhanka kale, Shafi waxa uu u tagay saaxiibadiis oo weydiistay lacag, isaga oo u ballan qaaday inuu u soo celin doono isla markii aabihiis lacagta loo fasaxo. Si kastaba ha ahaatee, saaxiibadiis waxa ay tuseen wejigooda runta ah
oo way u diideen inay caawiyaan isaga. Barbie waxay wacday Peter waxayna u sheegtay in ay tahay in dib ay u dhigaan arooska, taas oo ka dhigaysa Peter inuu ka xanaaqo sababtoo ah ma uusan guursan Barbie markii ay hantida lahayd. Charlie waa qofka keliya ee shaqo raadiyay oo isticmaalaya magaca aabihiis. Wuxuu si fudud u helay boos shaqo oo bangiga ah. Tan waxay dhigaysaa in maamulihiisa cusub inuu ka xanaaqo Charlie sababtoo ah shaqadaas waxay ahayd inuu qabto abti qoys. Dhammaadka maalintii, qoyska waxay iskugu yimaadeen oo carruurtii waxay gacanta u geliyeen German wixii lacag ay u awoodeen in ay ururiyaan. Barbie oo heshay lacagta ugu badan, laakiin waxaa la ogaaday in ay iibisay saacaddii Jaffe. Daqiiqado kadib, gabadhooda aaminka ah ee Marcia iyo Lucia ayaa u yimid guriga si ay u siiyaan garab, iyagoo u soo qaaday dhar ay isticmaalaan. Waxa uu ka faa'iidaysanayaa xaaladda Barbie si uu u dhibo sidii isaga ku samayn jirtay, balse eedadiis Marcia ayaa ku adkaysatay in uu shaqo ka siiyo maqaayadda uu ka shaqeeyo, weliba shaqo kabalyeeri ah. Jaffe waxa uu shaqo raadiyey, waxa uu helay shaqo darawalnimo oo gaariga dadweynaha ah. Maalintiisa si fiican ugu bilaabatay, balse markii dambe darawal kale waddada ku ciriiriyey oo lagu qoslay, wuxuuna bilaabay in la xifaaltamo. Halka Barbie iyadoo shaqadeeda cusub ee maqaayadda, macaamiishu waxay cantuuf ku tufayaan cuntada. Barbie waxaa loo sheegay in ay raacdo xeerka maqaayadda oo ah in ay xirato dharka loogu talagalay shaqaalaha. Waqtiga wuxuu socdaba, walaalo waxa ay bilaabeen in ay la qabsadaan noloshooda cusub, cunto karinta iyo nadiifinta naftooda. Kulanka Jaffe iyo darawalkii baska kale ayaa sii socda toddobaadyo. Wuxuu isku dayayaa in uu ka baasa meel baabuurta lagu dhigto. Tani waxay keenaysaa in uu joojiyo booliiska waddooyinka. Dhanka kale, Barbie aad uguma wanaagsana in ay noqoto kabalyeeri. Markasta macaamiishu waxa ay kala kulantaa wax aan wanaagsanayn. Waxaa ka mid ah Charlie waxa uu sameeyey qalad shaqadiisa bangiga, waxaana looga yeeray xafiiska maamulka. Kadibna markii albaabka xiratay, Charlie ayaa aad u naxay, balse waxaa loo soo jeediyey in uu yareeyo qaladaadka. Dhowr maalin kadib, xilliga cashada, German waxa uu arkay Barbie oo ismatajinaysa si ay u ilaaliso miisaankeeda. Aad ayuu u naxay markii uu ogaaday in ay samayn jirtay tan iyo markii ay ku jirtay jaamacadda oo ay samayn jirtay arrinkan, inay cuntada kadib ismatajiso ama cuntada ay cunto iska soo saarto si ay u ilaaliso dheelitirnaanta jirkeeda. Barbie si cadho leh ayay u qaylisay, iyadoo u sheegtay inaanu weligii waqti u helin carruurtiisa, weligeedna aanan ka filayn inuu daryeeli doono. Tani waxay ka dhigaysaa German inuu garwaaqsado sida uu u dayacay nolosha carruurtiisa. Dhanka kale, Peter waxa uu saaxiibadiis u sheegay sida uu u lumiyey fursad uu ku bixin lahaa deymaha lagu leeyahay, isaga oo ka faaloonaya musrifnimada iyo Karim oo la baxsay lacagta. Si kastaba ha ahaatee, Peter saaxiibkiis ma rumaysanayo sababtoo ah wuxuu arkay Karim oo taagan gadaashooda oo la hadlaya qof. Patros ayaa isla markiiba gartay inay wax qaldan yihiin oo wuxuu bilaabay inuu baadho. Maalintii xigtay, Lucia iyo Barbie waxay aadeen suuqa si wadajir ah si ay u iibiyaan raashinka maqaayadda iyo inay tijaabiyaan cuntooyinka waddada lagu iibiyo si ay iskugu soo dhowaadaan. Dhanka kale, Jaffe waxa uu helay darawalkii baska ee la tartamayay, wuxuuna ku bilaabay dagaal isaga, laakiin iska horimaadkii nacasnimada ahaa ayaa si lama filaan ah u istaagay kadib markii ay ogaadeen inay labadooduba akhriyaan hal buug oo isku mid ah. Waxayna bilaabeen in ay dhab ah u wada hadlaan midba midka kale. Waxay ogaadeen in hamigoodu noloshu hal mid yahay, inayna bilaabaan ganacsi iyaga u gaar ah. Dhowr toddobaad kadib, qoysku waxay ogaadeen inay ugu dambeyntii heleen lacag ku filan si ay dib ugu dayactiraan guriga. Bilaabeen inay ka wada shaqeeyaan guriga oo inta ay wada sheekaysanayeen, German waxa uu sheegay sida Jaffe ugu adag tahay hingaada. Tani waxay keenaysaa in Jaffe uu daha ka qaado in fahandarada isku dayay inuu iska daaweeyo, taas oo ka dhigaysa German in uu aamuso, waayo waxa uu dareemayaa inuu sayd u dayacay carruurtiisa. Maalintii xigtay, milkiilaha maqaayad ayaa xaflad u sameeyey shaqaalihiisii. Barbie iyo Lucia waxay ciyaarayaan qoobka ciyaar. Barbie waxay u mahadcelinaysaa gurigoodii, wuxuuna la kulmay German isagoo u sheegay inuu ogyahay beenta uu sheegayo, uguna hanjabay inuu runta u sheegayo carruurta. Ka baqay inay nacaan carruurtiisa kadib markay ogaadaan. German wuxuu weydiinayaa waxa uu rabo Peter. Waqtigaas, Barbie ayaa timid, sidaas darteed Peter wuxuu u arkay fursad uu ugu sheego qoyska in Karim uu ku soo celiyey lacagahooda bangiga, ay mar kale shaqaynayaan oo lacagahooda isticmaali karaan. Walaalo aad ayay u farxeen, laakiin German aad buu u carooday. Qoyskii wuxuuna isku diyaariyey inuu baxo. Barbie waxa ay la kulantay Lucia oo bannaanka taagan. Maalintii xigtay, German waxa uu aaday xafiiska, wuxuuna xal weydiistay Karim. Wuxuu rabaa inuu sirta ka ilaaliyo carruurtiisa, laakiin ma ogolaan karo.
Barbie in uu guursado Peter. Dhanka kale, Barbie waxa ay bilowday in ay soo tukaamaysato arooskeeda. Muddo kadib, German iyo Karim waxay la kulmayaan ay waqti la qaadanayaan Peter iyo qarankiisii. German ayaa Peter siiyey lacag si uu uga baxo nolosha Barbie. Si kastaba ha ahaatee, Peter waa uu diidayaa oo wuu ka sii darayaa, isaga oo German ka dhigaya heshiis sheegaya. Waxayna tiri, waa in carruurtaada runta u sheegtaa, sababtoo ah marba marka ka dambeyso waxaa adkaanaysa inay ku cafiyaan. German waxa uu go'aansaday inuu wax kasta u sheego carruurta. Dhanka kale, Peter ayaa Barbie ku cadaadinayo si degdeg ah inuu u saxiixdo warqadda guurka, sababtoo ah ma sugi karo mar kale. Barbie waxay dareensan tahay oo ma hubto in guurka daacad ka yahay, laakiin weli isaga oo diyaar u ah in uu qirto. Waxa uu wacayaa wiilashiisii, wuxuuna ka codsanayaa inay la kulmaan isaga. Laakiin markii uu waco Barbie, Peter waxa uu soo qaadayaa Barbie oo waxa uu keenayaa in uu si dhaqso ah u guursado. Isaga waxa uu ka walwalsan yahay German waxa uu samayn doono. Wax yar kadib, German iyo wiilashiisii waxay soo aadayaan hoolka magaalada si ay u joojiyaan Barbie, iyagoo imaanaya goobta arooska kahor inta aysan saxiixin warqadda. German ayaa ugu dambeyntii u sheegay runta ku saabsan lacagaha bangiga, isagoo u sheegay inuu been u sheegay sababtoo ah waxa uu rabay inay bartaan sida ay u adag tahay in lacag la helo. Waxdan kadib, saddexdii carruur waxay go'aansadeen inay dib ugu noqdaan gurigii hore, iyaga oo diidaya inay qaataan lacagaha German, oo ay diyaar u yihiin inay nolol ku dhistaan kartidooda iyagoo si adag u shaqaynaya, xitaa haddii aabahood uusan mar dambe arki karin. Shafi iyo darawalkii baska la socday ayaa furtay goob baabuurta lagu dhaqo. Markii saaxiibadiisii hore ee mar kale u yimaadeen, waa uu ceeriyey. Charlie waxa uu helay saaxiibadiisii carruurnimada, waxayna noqdeen lamaane isku faraxsan, halka Barbie ay dib ugu laabatay Luja oo u bilaabay inuu xiriir la sameeyo. Bilo kadib maalintii dhalashadii Barbie, qof kasta waxa uu iskugu yimid gurigii si uu ugu dabaaldego. Qof ayaa albaabka soo gargaraacay. Barbiena waa ay furtay. Wuxuu noqday aabaheed German, wuxuuna ka labalabeeyey inuu gudaha u soo galo. Wuxuuna go'aansaday inuu baxo, laakiin carruurtiisii ayaa ugu yeeray gudaha, oo qoyskii ugu dambeyntii dib ayay ugu midoobeen.